ardaygii 4 sano jaamacadda qaadanayay oo loo bilaabo ilaa uu fanni walba meel muhiim ah ka gaaro isla markaana arday waqtigiisii loo beeqaamiyo oo meeshii uu deganaa duruustiisa lagu siiyo deegaankiisii iyo caafimaadkiisii iyo cuntadiisana uu ka helo waxaa xusid mudan ardadan macadka shuruuddiisa waxaa ka mid ardayga soo gelaya in uu haysto shahaada dugsiga sare waliba uu ku gudbo darajada A iyo B oo kali ah dhammaan ardada marka la aqbalay waxay ku soo gudbeen ama ay haystaan labada darajo oo kali ah si marka tayada iyo wax badan loo miisaamo maadaama baahida marka keentay ahayd in baldad mutamayiza si gaar loo diyaariyo waxaan insha Allah iminkana u yeeri doonaa Sheekh Dr. Ahmed Hassan oo ah gudoomiyaha guud ee markaskan فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع بعد السلام dhammaan dadka ka soo qayb galay oo dhan oo la tilmaamay salaanta aan salaamayno iyo soo dhaweynta aan soo dhaweynayna kadib qodobka kaliya ee aan rabo inaan hadalkayga ku guto waxa weeyaan inaan wax ka tilmaamo oo dhammaanteen ina xasuusiyo guud ahaan dadka ka qayb qaatay aasaasidda markaskan hadday ahaan lahayd xagga mu'asasaadka xukuumadda iyo xagga mu'asasaadka madaniga ah oo dadka ganacsatada ay ugu horeeyaan iyo mu'asasaadka dacwada ka shaqeeya markaskan ka qayb qaadashadiisu markii shareecada laga hadlayo bishaaro weyn baa ku jirta abwaab badan oo shareecada ka mid ah ayaa soo hoosgelaya oo qofku uu niyeysanaya waxaa ka mid ah min baab icdaad adducaa in la diyaariyo dad dacwada ka qayb qaata sida sheekhu uu tilmaamayay waxaa ka mid ah in la diyaariyo dadkii waxa weeye culunta sharciga xambaari lahaa waxaa ka mid ah min baab attacaawun cala albiri waataqwa in wixii khayr ah la ysu kaalmaysto oo hadday xukuumad ahaan lahayd iyo hadday dadweynaheedii ahaan lahaydba wixii khayr ah la ysu kaalmaysto waxaa ka mid ah min baab alinfaaq fii sabiili illah in ilaahay waddadiisa wixii la heli karo gaar ahaan dadka waxhaysta ay ku bixiyaan waxaa ka mid ah iyadana in min baab icdaad ashabaab dadka dhallinyarada ah in loo diyaariyo siday u wajihi lahaayeen waxyaabaha aakhiru zamaankan aan joogno ay shareecadu tilmaantay inay dhacayaan oo fidnada ah oo runtii aan dhib yarayn in maraakistan oo kale lagu diyaariyo mooyeen waxaa ka mid ah abwaabta soo hoosgelaya dad badan oo waalidiin ah oo laga yaabo inay qaarkood halkan fadhiyaan oo laga yaabo inay ku fikirayeen caruurtoodu ama awlaaddoodu inaysan fursad u helin inay soo galaan safka dadka diinka ilaahay wax ka gudbinaya iyagana farxad bay u tahay oo waxaa laga yaabaa inay ku indhaqabowsadaan baa laga yaabaa culimmadii sii joogtay iyagana farxad bay u tahay oo waxaa laga yaabaa inay niyadu ugu xasisho ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu markaskan oo kale ka soo saari karo dad ay is odhan karaan haddii aad ka hormartaan iyaga ammaanadii cilmiga ahayd iyo dacwadii waa kaga tegi kartaan intaasoo dhan waxaa ka sii muhiimsan oo kulligood suurto gelin kara in loo nusreeyo luuqaddii carabiga ahayd oo luuqaddii islaamka iyo luuqaddii qur-aanka iyo luuqaddii ahli jannaha ahayd iyadana in loo hiiliyo oo aan ognahay jihooyinka waxa weeye hadda ay mashaakilaadku kaga socdaan iyadana in loo kaalmeeyo oo la nooleeyo dowrkeedii oo dowrkeeda ay qaadato ayaa ka mid ah waadna maqlayseenoo de hadda waxaa weeye sheekha sanadka hore oo dhan waxaa la qaadanayaa wax luqa alcarabiya ku saabsan ardadaanna waxaa loo diyaarinayaa haddii ilaahay yidhaahdo oo ilaahayna loo kaalmaysanayaa in luuqadoodu ay noqoto luuqad carbeed
markii la fasirayay qofka carabka ah waxyaabahan ka xasuusta waxaa ka mid ah carabnimada markay dadka wax baadha ay aad u baadheen oo buxuuthii rasmigeeda ay ka sameeyeen carabnimadu nasab maaha bay yidhaahdaan waxa weeye qof kasta oo luuqadiisii ay carabi isu bedesho baa caraba ayaa carab noqonaya marka ardadan waxaa loo diyaarinayaa haddii ilaahay yidhaahdo oo sanadka dhan loo siiyey in luuqadoodii ay noqoto luuqa alcarabiya isla markaana siduu sheekhu tilmaamayey dadkii wax gudbin lahaa iyo dadkii khudbayn lahaa kulligood ay noqdaan waxaan leenahay marka ka markas ahaan ardadana waan soo dhowaynaynaa waxaan xasuusinayaa anigu khaasatan markii anigu iyaga da'dooda aan ahaa fursaddii aan haystay iyo fursadda iyagu ay haystaan farqi weyn baa u dhexeeya anigu markaan 20 jirka ahaa oo raggii markaa dacwada wax ka hogaaminaya ay qaarkood meeshan fadhiyaan sida sheekh cabdiwaaxid oo kale in markas kanool kale la furo oo dowlad markaa jirta ay ka soo qayb gashay iska daaye masjidkii markaa aan ku soo xidhnayn oo waxna lagu barayay waan xasuustaa sheekhiina waa fadhiyaa buluuqul maraamka aad aragteen iyo saxiixu muslimka culimmadii markaa joogta waxay naga codsatay masjidka inaanaan keenin cabsi laga qabo dowladda buluuqul maraam iyo saxiixu muslim wey waxaan ka hadlaya sheekh cabdiwaaxid waa fadhiya waa 87 wey maantana maxaa laga hadlayaa oo dowladda ay ka soo qaybgalaysa in markas dacwo ducaad lagu diyaarinayo la furo farqi weyn baa u dhexeeya waa nicmo weyn oo anagu aanaan haysan waagaas oo iyagu ay heleen waalidiintooda ay heleen mantiqada ay degan yihiin ay heleen dowladda markaa gobolkan xukunta ay heshay waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin in ilaahay loogu shukriyo lana fahmo shukriga inta uu la-eg yahay weynankiisa ilaahayna loo tala saarto waxaan ku soo gabagabaynayaa ardayda iyo waalidiinta iyo madaxda kulli waxaan leenahay markaskan ku soo dhowaada in sha allah ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa sida maanta iftitaaxyada loogu sameeyey iyadoo la khatimayana inuu ilaahay cimriga nagu simo oo markaa la arka midhihii wabaaraka allaahu fiikum wajazaakum allahu khayran